marka maayirka waxaan u sheegayaa in aan meeshaasi maanta laga bilaabo aan difaacanayno oon xabad ka naqaano marka waxaan leenahay wax ilaahay noo kala gooyaan leenehee ku soo noqdo kaalayoo dumiya inta hadhay iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyay ay ku howlanayd wasaaradda howlaha guud dhulka iyo guriyeyntu qorshe magaaleedka ama master baleenka magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal gaar ahaan ay ka waday galbeedka magaalada Boorama taasoo ay barbar socotay khasaare baan oo loo geysanayay dhismayaasha sida jagooyinka iyo beeraha dadka shacabka magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal ay leeyihiin halkani waa dhismaha geeras dhameystiran oo ay dhisayaan maalgashayaal u dhashay gobolka Awdal cagaf iyo gaadiid ay hor kacayaan maayirka degmada Boorama isku duwaha wasaaradda howlaha guud ayaa gurigani u geystay burbur xoogan sida ay goobjoogayaashu ka warbixinayaan waxaan hay gaardiyaankii meeshan walaal waxa burburkaasi saaka anigoo meesha hurda oo iska jiifa meesha cusub ee magaranaysa geerashka laga furayay baan cagaftii damti gurigii dumaya baan arkay aniga waxba leeyma weydiin cid ila hadashayna ma jirto deyrkii anigoo inaan riyoonayo inaan kala garan waayay damtii dhagaxii igu soo dumay baan walaal ku war helay maalgashiga iyo meesha sida waxa dhir ku taal iyo sida loo maalgeliyay wada arkaysiin aniga ilaahay bay bixiyay maanta xaq ilaahay ma ka noolahay wax wajiga iyo wax midna noo dhigtay ma jirto may wax liixna noola sii sheegay ma jirto dhulka kale la marmarayo bararkeena laakiin wax gurigana nagala hadlay ma jirto wax albaab la igu soo garaacayna ma jirto waan hoos jiifnay macal mishiinadii alaabtoo dhan meesha ku rakaban waxna nala hadlayna ma jirto deyrkii iyo dumistii baan ku war helay walaal oo nan waxaan war hayeenayna jirin inaan riyoonaya ma ismooday anigu waxaan war hayeen maaha cagafiyada xitaa maray soo socdeen maalkan waan hurdayba halkan hurdana wala wada arkaysiin oo gooshayd waa taalka taal kabalaan baan kaga horda waan iga cagaagan arkaysiin meeshan markii la duminay saaka annagu ma shawaan joog baan ka ahay saddex cagaf ay haayeen iyo gawaari badan ciidankuna u saarnaa hoostan intay ka soo galeen bay ku bilaabeen aqalka waxa dad laga weydiiyay iyo wax ka midda toon ma jiro kolkay dhinac ka joogsataan dhinaca kale inay kaga bilowday damacdo jooy si allo ma looga joojiyo laakiin dhankana way kaga bilaabaysaa baashu cagafo meesha gashay ciidanka gaarka ka qabtay meel reeyeen oo saddex cagaf bay midba dhinac kaga bilowday wallahi ku jiriyaan in kale war ma hayno laakiin ninka jaarka nahay ana guri agtiisa aan gali jiray kolkii dama markay soo cagagano ordayeen inuu joogay kale war ma hayo magacaygu waa Dr. Muwarig Maxamed Cumar waxaan ahay mid kamid ah mulkiilayaasha geerashkan oo muddo ilaa sanad aan soo wadnay runtiina ahayd meel jagoon iibsanay si sharciyan aan ku dhisnay kadib waxay miday master planki waxay noo sheegeen meeshii inay isgoys noqotay oo laba wado iskugu yimaadeen runtii annaka oo tixgelinayna arintaas maxaa la yiraahdaa qurxinta magaalada haddana waxaanu u tagnay maamulka maayirka iyo isuduwaha baan kala hadlanay cid kalena waan u dhaxmarnay xitaa wasiirka marka waxay noo sheegeen intuba inaan la dumin karin ilaa iyo meeshaasi laga wada hadlo oo kharashkeegii la bixiyo waayo meeshu ma ahayn meel markii horena xoog lagu dhisay ma ahayn markii horena sharci baa lagu dhisay oo dawladda hoose ka soo baxay sharciga lagu dhisay marka saakana waxaanu anagoo shaqooyinkeedii ku maqan noola soo sheegay in meeshii cagaf la geliyay ninka geliyayna uu yahay maayirka iyo isuduwaha wasaaradda muxuu ahaa howlaha guud marka waxayna isticmaalayeen awoodna way isticmaalayeen oo ciidan badan intay soo kaxaysteen ay amar ku siiyeen inayna cidna u soo gudbi karin waxaan isku daynay inaan la hadalno laakiin ciidankii baa naga celiyay markii aan ugu tagnay meel kale iyo koob wada marka xitaa meesha waxa weeyaan meeshu si isgoysay noqotay xitaa qaybtaas kale dambe ay iga dambaysay waxay ku badbaaday darqiba ku badbaado waxa la hor istaagay waxa laga hor istaago loo sheegay in meeshan qalab ku rakibay intaas kaga istaageen xitaa aqli kuma darin ma oran bilow qof hoos surtaa meeshan oo bilow ku duntaa isma oran xitaa marka arinkaas saas u dhacay runtiina waxaan wax laga xumaado weeyaan waxaan dawladda ka doonaynaa in ay meeshaasi sida saxda ah ay warkayga uga soo bixiso haddii kale daadhow waan difaacanayna meeshayada oo meesha la iskama maaha un meel iska taagan un kharash baa ku baxay meeshan iyo maalgelin lagumana dhisin si xooga looma dhisin waxa loo dhisay si sharciya loo dhisay
cashuur bixiyaaya cashuurta bixiyaan nahay oo meeshan de markaan la dhisay cashuurteedii iyo ogolaashii iyo wixii oo dhanba waana laga qaaday marka ma ahayn de wax aan markii hore xoog aan ku dhisnay ma ahayn mid kale de qofkuna xaq waxa uu leeyahay inuu difaacan karo xoolihiisa oo ka difaacan karo cid kasta marka maayirka waxaan u sheegayaa in aan meeshaasi maanta laga bilaabo aan difaacanayno oo xabad ka naqaano because si wuxuu u dhaqmay si gaangis buu u dhaqmay runtii waan la hadlay waan isnaqaana waan la hadlay isagii isku duwaaba telefoonka naga qaban waayay waxaan ugu tagnay halka ciidan baa naga hor istaagay way baxsadeen gaari intay koreen ay iska dhaqaaqeen marka de waxaan leenahay wax ilaahay noo kala gooyaan leenahay ku soo noqdo kaalayoo dumiya inta hadhay magacaygu waa Fawzi Xaaji Ciise waxaan ahay sida mubaarak sheegay mulkiilayaasha dhismahan garajka runtii midda soo waday garajka loo de haddu bar hore abu dhamaaday waxaan furi lahayn way ka hor laakiin master plan ka darteed oo aan la kulanay maayarka iyo maamulka magaalada baa dib u noo dhigay runtii anagoo isku ogeynayno wada hadallo bal wixii de xal laga gaaro ayba saaka noo soo sheegay ninka wariyaha de gaadhka haya waxaan ugu baashi waaba la dubiyeyba markaan isku daynay inaanu la xidhiidho maayarkii runtii waa noo soo urtageli waayey oo xafiiskiisii waa ka weynay haddana waxaan tagnay saldhigga waxaan ku aragnay taliyihii booliska wuxuu noo sheegay inuu saaka ciidan uu dhaweydiistay una yidhi mataqaanaa anuu ciidan ma hayo dee military buu soo kaxaystay runtii markii aan ugu dhibay halkan isagoo meel kala duwinaya waxaan arkayn mas'uul kale oo la socda waxaan isaga ahayn iyo wiilka wasaaradda u jooga halkan mana rabaan in lala hadlo de askar bay isku wareejiyeen marka waxaan u arkaa isku geyn in dee meel lasoo weeraray oo sharcina loo haysanin meel dee dhisan oo sharci lagu dhistay la iska dubiyey iyadoo dadkii aan lala hadlin waxaan u arkaa un dee meel ay gaang iska yimaadeen oo iska dubiyeen marka de haddii gaangnimadu dee wax soconayso dee dadku iyagu laftoodu gaang way noqon karaan marka ninka maayarka nin mas'uul baan u haystay laakiin maanta dee wuxuu ekaaday nin dee mudacadaba oo wuxuu doono iska sameynaya marka maayarka waxaan u sheegi lahaa aqliyadda u soo noqo nala fadhiiso noo sheeg waxaad ka dabacsan tahay markaasaynu wada hadlaynaa laakiin haddaad isku daydo in gaangnimo dee aad meeshii ugu tagto dee dadku iyaguna waxay rabaan bay samayn doonaan marka waxaan mar labaad kuu sheegayaa ku soo noqo mas'uuliyadda aad degmada u hayso mas'uulna noqo ha noqonin wiil yaroo dee askarinta soo kacaysta meel kasta iska jiiraya marka waxaan kugula talin lahaa sharciyadda u soo noqo mas'uuliyaddaadana garo aad degmadan u hayso shacabka cisqi magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal